dowladda dalka Itoobiya ayaa sheegtay in duqeymo diyaaradeed oo aan kala joogsi lahayn oo saacadihii la soo dhaafay ay ka fulisay goobaha dagaalka ee gobolka Amxaarada inay ku dishay saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka TPLF. dhankooda ururka TPLF ayaa soo bandhigay gawaari gaashaaman oo ay ka furteen ciidamada dalka Itoobiya iyo kuwa Amxaarada, waxayna sheegeen in goobaha qaarkood ay ku jabiyeen dowladda federaalka Itoobiya iyo dowlad deegaanka dalkaasi ee Amxaarada. kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xaalka dalka Itoobiya iyo khasaaraha ka dhashay dagaaladii halkaasi ka dhacay saacadihii la soo dhaafay iyo sheegashada dowladda Itoobiya ee ku saabsan inay qaarajisay saraakiil sarsare oo ka tirsan TPLF. beejkan kusoo biir oo leeg saar filowda siina sheer garay warbixintan, sidoo kale linkigeena hoose raac oo subscribe saar YouTube-keena Calan TV kuna soo biir oo rukuma mahadsanid. aynu ka horeyno duqeymo dhinaca cirka oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka dowladda Itoobiya ayay ku sheegtay dowladda Itoobiya inay ku dishay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda TPLF ee dowladda dagaalka kula jirta. saacadihii la soo dhaafay waxaa si adag loo howlgeliyay diyaaradaha dagaalka dowladda Itoobiya kadib markii ciidamada Itoobiya iyo kuwa Amxaarada lagu jabiyay dagaalo dhowr oo ay la galeen kooxda TPLF iyo qoomiyadooda Tigreega. wararka aynu helay ayaa sheegaya in dagaalada oo dhacay ay muujiyeen in kooxda dowladda ka socotay iyo maamulka Amxaarada ciidamadoodii la jabiyay, sidaas darteedna dhammaan la howlgeliyay diyaaradaha dagaalka dowladda Itoobiya kuwaas oo duqeymo la beegsaday fariisimaha ay ciidamada TPLF ka samaysteen qaybo ka mid ah gobolka Amxaarada. inta la xaqiijiyay duqeymahaasi sida dowladda dalka Itoobiya ay sheegtay waxaa lagu dilay 3 sargaal oo sarsare oo ka tirsan kooxda TPLF. waxa ay sheegeen in saraakiisha la dilay mid ka mid ah uu hogaaminayay ciidamada ku sugan aaga Gondar kuwaas oo ku sii jeeday magaalooyin waaweyn oo ku yaala gobolka Amxaarada. dowladda Itoobiya waxay sheegtay in saraakiisha ay dishay ay muhiim u ahaayeen dhaqdhaqaaqa kooxda TPLF ee doonaysa inay colaadda dalka Itoobiya ay si daba dheeraato. ciidamada cirka dowladda Itoobiya ayaa sidoo kale sheegtay inay si aad u jabiyeen oo ay burburiyeen saldhigyadii ay lahaayeen kooxda TPLF ee ay ka samaysteen qaybo ka mid ah gobolka Amxaarada oo ay maalmihii la soo dhaafay qabsadeen. marka laga soo tago sheegashada dowladda Itoobiya ay sheegatay inay duqeyn ku dishay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda TPLF, haddana ma jirto ila ka madax bannaan oo arrintaasi xaqiijinaya. dowladda Itoobiya ayaa la aaminsan yahay inta badan wararka ay soo saartay xaqiiqada ka fog yihiin, iyadoo doonaysa inay majara habaabiso wararka saxda ee laga heli karo goobaha dagaalka. warbaahinta caalamiga ayaa ku warantay in gudaha dalka Itoobiya waxyaabaha ka soconaya iminka yihiin kuwa uurku taala leh kadib markii la soo wariyay xasuuq ba'an oo dad rayida loo geystay iyo dagaalo lagu qaaday magaalooyin nabdoona oo dhammaantood la burburiyay. waxay sidoo kale hay'adaha caalamiga muujinayaan in walaac xoogan uu ka jiro goobaha lagu dagaalamayo, taasoo la xiriirta macaluul inuu ka dilaaci karto oo ay dadka deegaanka halis ku jiraan. dhankooda kooxda TPLF ayaa soo bandhigtay gaadiid dagaal oo ay ku qabsatay dagaalada ay la gashay dowladda Itoobiya iyo maamulada kaleete ee garab siinaya sida Amxaarada iyo Soomaalida. kooxda TPLF waxay soo bandhigtay tobaneeyo gaadiid oo ay ku jiraan kuwa fudfudud oo ay saaran yihiin qoryaha dhashiikayaasha loo yaqaano iyo sidoo kale gaadiid kale oo gaashaaman oo ka mid ah dabaabaadka dagaal ee ciidamada dalka Itoobiya. TPLF waxa ay sheegtay in dagaalka ay doonayso inay sii wado ilaa iyo inta laga soo afmeerayo dhaqdhaqaaqyada Abiy Ahmed uu ka wado gudaha dalka Itoobiya iyo doorashooyinkii sharci darrada ah ee uu qabtay. kooxda TPLF waxay ku andacoonaysaa inaysan jirin khasaaro xoogan oo ka soo gaaray dagaalada ay la gashay dowladda Itoobiya, waxayna wacad ku martay inaysan yeeli doonin ama aysan aqbali doonin xabad joojin xilligan ay qaadato.
kooxdu waxay u muuqataa inay dhagaha ka furaysata dhammaan soo jeedimo uga yimid deeq-bixiyaasha iyo hay-adaha gargaarka taasoo ku saabsaneyd in si degdeg ah xabadda loo joojiyo si goobaha dagaaladu ay ka dhaceen loo gaarsiiyo gargaar. waxa ay sheegtay TPLF sidoo kale inaysan aqbali doonin hadal dhawaan kasoo yeeray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed taasoo salka ku haysay xabad joojin degdeg ah. dhankooda maamulka Amxaarada ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday abaabul xoogan oo ay iskaga caabinayaan qoomiyadda Tigreega. Amxaaradu maanta waxay sidoo kale goobaha dagaalka ay geeyeen ciidamo hor leh oo maalmihii la soo dhaafay ay tababar siiyeen si ay dagaalka qayb uga noqdaan. ciidamada sida tooska dagaalada ugu biiray maanta ee tababarka qaadanayay maalmihii la soo dhaafay waxa ugu horeeya shaqaalaha dawliga ee maamulkaasi deegaanadiisa ka shaqeynayay kaasoo loo carbiyay inay difaaca hore ay ka qayb qaataan. maamulka Amxaaradu waxa ay sheegeen inay lagama maarmaan tahay inay dadku hubka qaataan si la iskaga difaaco kooxda TPLF. dhawaan ayay ahayd markii gobolka Canfarta sidoo kale maamulkoodu ku dhawaaqay in dadka looga baahan yahay inay sumeeyaan si ay uga hortagaan duulaanka TPLF. arrinta indhaha sida weyn loogu hayo ayaa duqeymaha dagaalka ciidamada dalka Itoobiya ay ka geysanayaan gudaha dalkaasi. arrintani ayaa muujinaysa saansaanta burbur iyo dagaalo sokeeye oo hor leh oo kasii dilaacaya wadanka Itoobiya taas oo mar kale si adkeyn doonta xaaladda dalka Itoobiya. mar walba halkan nala joogo saaxiib nugula noqo page-kan like saar oo ha dhaafin follow siina share garee warbixintan si ay asxaabtaada u gaarto. mahadsanid.